وين هذا هذا لا هذا ما هذا تقول كده عن تقول لي قلي هاي قلي كان حاجه برا كان وفرت كان والله كريو قلي لا يا niyow dabkani wuxuu ka dhashay meeshaasuu ka dhashay waxayna ahayd meherad laba u kala xidhan oo waxa weeyaan qaybtan hore iyo qaybta dambe ahayd marka sida aad arkaysaan qaybtani way gubatay sababtana meesha tana lahayd insha Allah taala waa shil sahlan ilaahay idankiis waxa weeyaan waxaan dareemaynaa in ilaahayna badbaadiyay alxamdulillah marka de waxaana in laga feejignaado baa loo baahan yahay khasaaruhuna ma yara alaab badan baa gubatay waxa weeyaan hantida ku gubatay ma yara laakiin cidina iskuma dabaridin ilaa iyo hadda wali muhiimaddu waxa weeyaan in wax la qabto weeye ciddii ku guuleysatay inay damaysana aad iyo aad bay u mahadsantahay marka yaa dambinta ka qayb qaatay dadka kulliba intaan ka ogaahay anigu saakan ogaaday waxa weeyaan maamulka iyo dadamisyada iyo waxa weeyaan booliiska iyo qolyahaas baa ka qayb qaatay aadna ugu mahadsan marka dabal xagaaba lagu jiraa xilli xagaaba lagu jiraado waxa taxadar baa loo baahan yahay in aad loo taxadaro waxa weeyaan dabka laga taxadaro haddaan laga taxadarinna meeshan waa suuqi magaalada ugu weynaa waxa weeyaan khatar baynu gelaynaa marka idinku ma siiseen shaqaalaha idin shaqeeya in arrimahan kale taxadar ay ka sameeyaan shaqaaluhu waxay qabeen tababar bay qabeen laakiin de qadar iyo maqaadiir cidina ma celin karto marka ugu dambeyn xasoo jeedinaysaa waxaan soo jeedinaynaa in la feejignaado dadkuna isku waxa weeyaan waqtiga xagaagana gaar ahaan aad la isu ilaaliyo bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxaan ka mid ahaa xagga ku ganacsada magaalada Garowe xarunta dawladda Puntland ee Garowe xalay markuu dabka kacay ayaan soo kacay waa soo gaaray waxaan ka mid ahaa raggii oo dabka damiyay ayaan ka mid ahaa waxaan leeyahay maamulka dawladda Puntland waa inay kala ilaaliyaan xarumaha ganacsiga iyo meherada dabka matagan ay ka kacayo waxaan leeyahay maamulka waa inay talaabo ay ka qaadaan dadka ku ganacsanaya meelahan marka ganacsiga dadka daliil bay leeyihiin dadka ku leeyihiin Soomaali dadkii baa wax isku dhexgalaya dabkii iyo wax walba saarnay darkii wax walba daliil bay leeyihiin ganacsatadu daliil bay leeyihiin waxaan u sheegayaa qof waliba oo matagan oo ku ganacsada meheradahan inay matagan ay dadaalaan matagan ay sameeyaan inay kala fogeeyaan dabka iyo meheradaha waayo meeshan waa halbowlaha ganacsiga hadduu suuqa u gubto khasaar badan ayaa dhici karo dad badan ayaa laga yaabaa inay matagaan ay hantidooda matagaan ay ku beelaan marka waxaan leeyahay dadka ku ganacsada iyo kuwa matagaan oo meheradaha leh waa inay matagaan ay kala badbaadiyaan xarumaha ganacsiga iyo meelaha dabka matagaan uu ka kacay halay dabku waxa uu ka kacay la yiri jikadu ayuu ka kacay halay dabka marka matagaan waa inay kala ilaaliyaan anigu waxaan leeyahay ganacsatada iyo kuwa meheradaha ayaa mas'uul ka ah dhibaatadan dhacday halay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaana badbaadiyay dhibkii dhacay halay baka aniga dabka waa markaan wareysanay dabka wuxuu ka kacay jikadu ayuu ka kacay dad badan ayaa aan wareysanay raggii meesha ka shaqeynayay ayaa la wareystay dabka wuxuu ka kacay jikadu ayuu ka kacay dabka maxay meesha ahayd waa meherad cunto ayay ahayd shaaha sambuuska cabitaanka ayaa lagu iibinay meeshan dadku waa suuqa saako timid dad baa xalay magaalada ka kacay suuqa dhan khatar galay marka warna wallahi arrintaas waa arrin xalay waxay ahayd aan la ogeyn goordam dab kacay arrintaas khatar bay ahayd in waxay ku fiicnaan lahayd suuqa iyo meheradaha cuntada ha ahaat in la kala fogeeyo
in loo sameeyo meelaha goobo maxaan ku rahdaa stationary oo مثلا xagga dabdamiska oo yarar loo sameeyo suuqa bay ku fiican lahayd marka arintaas xalay waxay khatar weyn bay ahayd ilaahay dadka badbaadiyay walaal marka sidee khatarta kale looga baajin karaa suuqa waxay waasitay dadka ka cabir meherada dadka ka waxa weeye in laga joojiyo meherada dadka shidaysa badee meherada sida meherada cuntada kala hadii ahayd laga suuqa in laga fogayo kalama shidaalka laga fogayo macnaha meherada oo dhan wixii maxaan ku rahdaa suuq maxaan ku rahdaa xagga dabka ah in laga fogeeyo nooc kasta uu yahayba in la badbaadiyo maxaan ku rahdaa maalka meesha yaala oo hanti badan baa meesha taallay ilaahay baa xalay badbaadiyay marka waxa weeye in laga arintaas dawladdu xil iska saadho in meelaha aaga ka dhow waxa daba ka dhow laga fogeeyo oo dhibaato hadda ma jiraan meesha wixii yaalay oo aan dad naf ahayn way ay gubteen marka dib soo gaaray dibdamsiyada soo gaaray goor habeenimana way ahayd oo dambe oo la seexanayo marka dadka qaar soo jeedo wixii maqaaxi iyo laha soo jeedaan laakiin waxay dadka kala seexday waxa soo jeedinaya waxaan in wax laga qabto tala laga qabto calalada wada bilfilo oo korka la saaray iyo balaa dabka soo dhaweynaysa iyo korontooyinka iyo gaasaska waxa la kala khafiifiyo ama la kala fogeeyo ama la kala khafiifiyo meel waxna lagu gadanayo haamo shidaalihiin yaalin dabna lagu shidayaa jirta magaalada meel dabna lagu shidayo haamo shidaalihiin yaalin ama kuwa gaas yaalin qofka ganacsigu waxa way ma baahnaa waxyaalo badan buu baahan yahay in laga ilaaliyo oo ay kamid tahay dabka waxyaalaha waxa way dabka ka kacay oo dhan sida dababka lagu dhex shidayo maxaan ku raadaya shidaalka kale wax allaale wixii suuqa dhibaato ku ah oo dhan in laga ilaaliyo ma muhiimad ah marka dhaliishayaas kala ganacsatada laftigood ma leeyihiin wax walba isku gadaya kole taxadar la'aantu mas'uuliyadu waa qaali qofkii mas'uuliyada ka qayb qaadan waaya dayac buu muujiyay marka cid kasta oo ama ganacsatada ha noqoto ama cid kasta oo meesha ku gadaa ha noqoto in mas'uuliyada meesha la wada ilaaliyo baa muhiim ah أنا رجل رحيم مخالف لو قلنا له هو حاجة واحد لوسو يعني والله كريو يلي لا يعطي يا عطاي ها ما يكلم هاي سوسما انت هذا لو قبل وهكا Pero